بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waa saaxiibin carfaaye kusoo dhawaada barashada MS Word casharkii 12aad. Casharkii 12aad waxaan ku baranaynaa convert web page to word, convert word to web page oo loola jeedo haddii aad rabto in news ama akhbaaraad oo markaa ku jiro website aad inaad isticmaasho aad rabto qaabkee loo isticmaalaa. Waxaan sameynaynaa marka koodii waxaan tegaynaa Chrome browser ka tegaynaa kadib waxaan leenahay tusaale waxaan qoraynaa BBC oo kale kadib enter leedahay sida ujeedo wuxuuna keenay BBC oo kusii ofanaa linkigan ugu horeeyo then all the news ko dhan waa kuma markaa doonto ka dooranaysaa tusaale midkaan aan ku dhufanaynaa dee markaan sidaa ugu dhufano wuxuu noo saari doonaa linkiga URL kan qaybtan kore sida ujeedo URL ayaa la dhahaa qaybta marka koobiyeyna waxaan leenahay control C ayaan leenahay then wordkan ku laabanaynaa then waxaan leenahay file kadib waxaan leenahay open waxaan leenahay browse and then halkaan ku paste garaynaa marka control V aan leenahay kadib open aan leenahay waqti ayuu qaadan doonaa oo suginaa sida ujeedo u furmi rabo markaan waa ka waskanay then ku dhufanaysaa print layout. Okay, waxaad doontaa waxa bedelaad nooca doontaa ku samayn kartaa. Sawirkan hadda bedelaad tusaale sawirkan ayaan bedelayaa formadan ku dhufanayaa change picture ayaan leeyahay work offline then from file haddii aan dhaho aan ku bedelanaa waa ka marka caadi sawirka toos ayuu bedelay. Sidaas oo kale qoraalladan aad arkayso intaad sida u doorato ayaad gelin kartaa maya haddii markaasi lagu soo diray inaad akhbaaro soo diyaariso waad isticmaali kartaa sidaa doonto ayaad u isticmaali kartaa waxaad doontaa ku dari kartaa waxaad doontaa ka bedeli kartaa daarin Soomaaliya ama qoraa Soomaaliya waka marka convert web page to word waa aragnay web page markaasi war ku jiro ayaad waxa u bedelaysaa word ahaan u bedelaysaa. Okay, waxaan arkaynaa markaan word to web page aan fiirinayna tusaale wordkan aan waxaan soo gashanaynaa qoraal formalihi ayaan isticmaalaynaa oo hore aan soo aragnay equal round ayaan leenahay aan shift 9 iyo shift 0 enter leenahay then qoraalkan hadda waa marka word way haddii aan rabo inaan u bedelo qaab web page ahaan waxaan leeyahay file save as tusaale this PC aan dhaho kadib desktop aan dhaho then halkan web page ay u qoran waa sida aan rabo marka qaar wuxuu ku soo qoona word document ku soo qoona marka adaa laga rabo inaad bedesho oo u bedesho web page oo inaad u bedesho sideen halkan dhowli amal iska qorto halkan aan doorto desktop-ka kadib save aan dhaho then adina markaan waan furayaa waa kan aan qaabka u noqday klik aan leeyahay then fiir warkiisu isku bedelay wuxuu isku bedelay as web page marka labadaas qaab koowaad waa website ku jiro ayaad rabtaa inaad isticmaasho waxaad samaynaysaa marka website-ka ama warka newskaas URL-kiisa soo qaadaysaa kadib word ku dhex furaysaa qaabka loo furan waa soo sharaxnay markaad rabtid inaad word u bedesho web page-na qaabkaas file marka dhahdo oo save as aad dhahdo ayaad meesha word document-ka waxaad ku bedelaysaa web page kaas marka casharka joojinayna haddana wax cusub usoo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.